والسلام عليكم. sifooyinka shakhsiyadda dadka magacoodu ka bilaabo xarafka A ama xarafka A ma ka bilaabo magacaagu ah. Cilmiga astrology wuxuu saadaalin ka bixi karaa astaamaha qofka iyadoo lagu saleynayo xarafka ugu horeeya magaca. Haddaba markaan ka hadlayno cilmigan, ujeedadu ma aha inaad aaminto, balse u qaado cilmi ahaan. waxaa sidoo kale la rumaysan yahay inuu xaraf kasta ku xadidan tahay tiro lambar ah, taasoo lagu ogaan karo astaamaha shakhsiyadda qofka. waxaa la rumaysan yahay inay saameyn ku yeelato fikradaha, dooqa iyo go'aanada qofka. go'aanada ayaa qayb weyn ka ah nolosheenna. haddaba dadka magacoodu ka bilaabo xarafka A ama A waxaa astaamahooda ka mid ah: 1. waa dad waxqabad leh. dadka magacoodu ka bilaabo xarafka A waxaa loo qadariyaa inay yihiin dad waxqabad leh. iyagu uma baahna inay sameeyaan ama ay rumaystaan waxyaabo ay ka maqlaan dadka. iyagu waxay adeegsadaan maskaxdooda oo markaas go'aan qaataa. waxaa iska cad inaanay u baahnayn inay rumaystaan xeerar kore loo dejiyey oo ay og yihiin suurtagalnimada in xeerkaa la jebiyo oo had iyo goor way jirjiraan. waxay isku dayaan inay falanqeeyaan waxyaabaha ka hor inta aanay aaminin dadka kale. 2. waa dad go'aan leh. mar hadday go'aansadaan yoolkooda ma beddelaan. waxay joogsadaan oo keliya markay yoolka gaaraan. taana waxaa ugu wacan go'aan qaadashada ay leeyihiin. tani waa sababta guud ahaan ay u kalsoon yihiin gaarista baratilmaameedkooda. si kastaba ha noqotee, marka qaar go'aanadu waxay noqdaan kuwo xad dhaaf ah, sidaa darteed waxaa loo arkay inay yihiin kuwo adkaysi leh. 3. waa dad samir leh. si kastaba ha noqotee, qiimaha ugu wanaagsan ee ku saabsan dadkani waa samirkooda. dadka magacoodu ka bilaabo xarafka A waxay leeyihiin dulqaad iyo samir aan caadi ahayn. mar alla marka ay galaan shaqo adag, waxay si fudud ku sugi karaan natiijooyinka, iyagoo og in waxyaabaha wanaagsan waqti qaataan. si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood waxaa lagu yeeri karaa jaahil ama caajis sabirkooda dartiis. 4. waa dad ixtiraam leh. dadka magacoodu ka bilaabo xarafka A waa dad akhlaaq leh. siib ahaan markay hadlayaan, waxaa laga yaabaa inay haystaan xukunno badan iyo fikrado kaasoo horjeeda adiga, laakiin wejigooda wuxuu ku tusi doonaa mid ixtiraam leh oo laga yaabo inay taasi sabab tahay inaad ku aaminto si fudud. 5. waa dad maskax furan. sidoo kale waxaa jirta dabeecad kale oo mudan in lagu qiimeeyo shakhsiyaddooda. wax dan ah kama laha bulshada dhexdeeda. qofna ma xukumi doonaan ama kama hadli doonaan wax kastoo ka qayb ah nidaamka aaminaadda. waxay leeyihiin fikir u gaara, halka ay u muuqdaan kuwo xor ah oo maskax furan. waxaanay rumaysan yihiin inuu qof kastaa leeyahay qaab nololeedkiisa oo aan qofna xaq u lahayn in uu ka hadlo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.